Ilaali dawooyinka ka-hortaga gaboobida. Dhakhtarka wadnaha ayaa shaaca ka qaaday habka ugu waxtar badan. Ma rabtaa inaad si fiican u gabooto? Dhakhtarka wadnaha ayaa la wadaagay talooyinka. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraib si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Dawooyinka ka-hortaga gaboobida, habraacyada quruxda, kiriimada, casiirrada, suuqa waxaa ka buuxda alaabta iyo adeegyada sheegaya inay ilaaliyaan dhallinyaronimadaada. Laakiin runtii inta badan waxay u taagan yihiin ballamooyin waaweyn oo aan waxtar lahayn. Sanjay Bhojraj oo ah dhakhtar wadnaha oo shahaado leh oo leh in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo caafimaad ayaa shaaca ka qaaday sirta gaboobida si fiican. Maya ma ku baahna lacag badan. Runtii waa bilaash. Aan eegno gaboobida caafimaad qabta. Inkasta oo gaboobidu tahay qayb lagama maarmaan ah oo nolosha ka mid ah, uma baahna inay kugu dhigto mid taban oo jiran. Qofku wuxuu si caafimaad qabta u gabooban kara, nolol tayo leh noolaan kara, oo aad ugu yar ugu tiirsanaan kara dadka kale. Sidee Bhojraj wuxuu sheegay in cimri dheerida ay ka bilaabanto guriga. Ma rabtaa inaad si fiican u gabooto? Halkan ka bilow maaha farmashiyaha oo dhan, ayuu dhakhtarku yidhi. Dhakhtarka wadnaha ayaa xoojiyey in habnololeedku door muhiim ah ku leeyahay caafimaadka guud. Kadib 20 sano oo aan dhakhtar wadnaha ahaan ku jiro, waatan dadka badankoodu garanaynin. In ka badan 80 oo ka mid ah cudurrada dabadheeraada waxaa keena habnololeedka, maaha hidde-sidaha, ayuu ku yidhi qoraal uu Instagram ku wadaagay. Sidee si fiican loo gaboobaa? Dhakhtarku wuxuu xooga saarayaa muhiimadda samaysiga doorashooyinka habnololeed oo wanaagsan, kuwaas oo ka mid ah jimicsiga, cuntada iyo kuwo kale. Taasi waxay ka dhigan tahay sida aad u dhaqaaqdo, u cunto, u seexato, iyo sidaad ugu maamusho walbahaarka ayaa go'aamisa wax badan oo ku saabsan cimri dheeridaada marka la barbardhigo waxaa ku jira sanduuqaaga dawooyinka. Oo weli, dadka intooda badan waxay ka bilaabaan farmashiyaha halkii ay ka bilaaban lahaayeen fiisiyolojiyadooda, ayuu yidhi. Qalabka ugu wanaagsan ee ka hortaga gaboobida. Sida uu u sheegay Bhojraj, qalabka ugu awooda badan ee ka hortaga gaboobida waa dhaqdhaqaaqa ula qastay. Daraasaduhu si joogto ah ayay u muujiyeen in jimicsigu la xidhiidho nolosha dheer ee caafimaad qabta. Jimicsi joogto ah ayaa damaanad qaadi kara tayo nolosha iyo cimri dheerid. Daraasad 2.22 ayaa heshay in firfircoonaantu ay door ka ciyaari karto mid ka xoog badan hidde-sidaha marka la go'aamayo cimri dheerida. Daraasadayadu waxay muujisay in xitaa haddii aadan u muuqan inaad cimri dheer noolaan doonto adigoo ku salaysan hidde-sidahaaga, weli aad kordhin karto cimrigaaga adigoo ku howlan habdhaqan wanaagsan sida jimicsi joogto ah iyo fadhiyin yar. Taasoo lidkeeda ah, xitaa haddii hidde-sidahaagu ku habeeyo nolosha dheer, weli firfircoonaantu way muhiim tahay si loo gaaro cimri dheerid, ayay cilmi baarayaashu yidhaahdeen. Dhaqdhaqaaqa ka baxsan socod. Inkasta oo socodku yahay mid ka mid ah qaababka ugu sahlan ee jimicsiga oo lala xiriiriyo faa'iidooyin caafimaad oo badan, sidoo kale waa inaad ku dartaa dhaqdhaqaaqyo kale nidaamkaaga jimicsiga. Maaha socod keliya, dhaqdhaqaaq muruqyadaada dhiribtira, samabadaada ballaariya oo unugyadaada u sheega si noolow, si xoog badan ahaw, ayuu dhakhtarku yidhi. Dhakhtarka wadnaha ayaa xoojiyey in tababarka hooga iyo jimicsiyada hawada ay muhiim u yihiin ka hortaga cudurrada dabadheeraada. Daraasaduhu waxay muujinayaan in tababarka hooga iyo hawada ee joogtada ahi hoos u dhimi karo halista cudurrada wadnaha, sonkorowga, iyo hoos u dhaca maskaxda ilaa 50. Habbo ama gaarintaas. Mitochondriadaada, mishiinada tamartaada iyo cimri dheeridaada waxay ku kobcaan oksijiin, iftiinka qoraxda iyo dhaqdhaqaaqa, ayuu yidhi. Dhakhtarku wuxuu ku daray taasi maaha habhab, waa sidii jidhkaaga loogu abuuray inuu ku bogsoomo.